transit inaan ku maro sababa hadda aanan ku dheeraanin baa igu kaliftay inaan diyaaradan ka filayay inaan ka qaato Buuhoodle yaa suurtoobi weyday sida awgeed magaaladan airport weyn oo aad u fiican baa ku yaal taa inaan ka faa'iideysto yaan meesha u imi magaaladan waqti hore ay ugu dambeysay runtii aad bay u dhisantay aad bay u qurux badan tahay kastoo aanan waqti badan helinaan soo warwareego laakiin intaan arkay yaa qancisay hawl badanna meeshan in laga qabtay maamulka Somaliland muddadii hadda uu meesha joogayna waxaan maleeyahay magaalooyinka kale qudadooda dariiqo baan soo maray Burco iyo Berbera iyo laakiin dhismaha iyo wali wadada weyn ina Afmadoobe ilaa Ceergaabo lafteeda ina Afmadoobe maraan soo maray la tilmaamay wata wadadii Ceergaabo li 4 saacadood baa lagaga imanaya meeshaasna maalmaha marka roobo ku jiraan loo aadisay marka halka aan ku noqday waxaan u imi transit baan ahay nasiib wanaag ways arag madaxweynaha waa arkay xalaan is aragnay niman odayaal oo kale oo maamulka iyo baarlamaanka ah waa is aragnay laakiin nin wada hadallo iyo arrimo u socday halkan inaan ku qabsano ma ihi Soomaalida waxay tiraa war hal isii iyo hoo hadal badan baa u dhaxeeyay annaga iyo Soomaaliland wada hadal baa noo bilaabay muddo hadda 2 sano ku dhow inaanu wada hadallo oo qolo walba iyadoo danteeda wadata oo danteeda daafacanaysa haddii aanu heshiin karno oo nabad aagan dadku balaynay marsalka dhigaan oo yoo laga dhigto wixii haddii la wada hadlo dana badan baa naga dhaxeeya dhibaatooyin badan iyo colaad iyo burbur iyo dhiig badan oo daantaana waa jiraan indhaha kama qarsanayno haddana Soomaalida waxay tiraahdaa waa seet wixii ay u muuqato inaanu ka wada hadli karno isla ogolaan karno iyana in la holiyo waa fiican tahay Europe ku kaliftay oo Germany iyo France ama Germany iyo Ingiriis yaale isku hal unit baanu noqonaynaa ama dhaqaale ama yoolku yahay siyaasad xitaa hal state baan u soconaa halkanna meeshanna waxa yaalana waa aragnaa ma uuna Khaatumo iyo Somaliland laakiin Soomaaliya ama geeska Afrika oo dhan yaa runtii fursado badan muuqdaan dhibaatooyin badan ay ka taagan yihiin raqbo waa ku raggeed wixii uu maanta nool ee u baahan tahay in ay isaga yimaadaan ka wada hadlaan khayaal iyo waxaan jirin lagu wada hadlaan laga fiican wixii dan loo moodo la ikraah fi diin cidna lama khasbayo taana annagu kulli hadaan Khaatumanahay diyaar baan u nahay wada hadalladaas laakiin inay waqti qaadanayaan waa in lagu talagalaa wada hadallaan islaanahay hadaba waa la soo afjari karaa arrimo culculus baa meesha yaala umadaanu dadkan waana kala maqnaa colaad bayna ku kala maqnaayeen haddana waxay isu yihiin iyo wax ka dhaxeeya anigu hadda Nairobi aan u socdaa shir Nairobi lagu qabanayo waxaan u socdaa haddaan Nairobi ka soo noqdana kulli magaaladan waa soo mari doonaa sikidisana waa ku imi si aanan xitaa cidnaba u sheegin oo maamulka Somaliland private visit transit kaygaas saasaan door mooday laakiin madaxweynaha ay saragnay wasiiray saragnay gudoomiye Muuse Biixi saragnay iyo Maxamed Kaahin waxaan jeclahay marka dambe aan soo noqdana haddaan maalin iyo laba waxay doonaysaa wax noqotay in aan isa sii aragno